taliyihii hore ciidamada militariga dalka Soomaaliya General Maxamed Nuur Galaal ayaa markii ugu horeysay wareysi khaas ah uu siiyay telefishinka Hon Cable TV isagoo ku sugan caasimadda Hargeysa ee Soomaaliland waxa uu ku sheegay oo faahfaahin kaga bixiyay sababta keentay in caasimadda Hargeysa uu socdaal ku yimaado. waxa uu sheegay in kulan uu qaatay madaxweyne Axmed Maxamed Silayo taliyaha ka hadlaya ujeedada socdaalkiisa waxa uu yiri iminka laba walxaad boo way ama aan saddex ku dhaho waa markii horeysay horta Hiroshima inaan mar kale arko say u taalo way rabay sida magaaladii la burburiyay loo galay bal siday noqotay waa rabay alxamdulillah waa weynaatay waa dhisantay waa kana laba problema yar yar ay qabtaa biyo iyo wadooyin hadaas ay qabtaa haba biyo soo socdaan la igu yiri de ma qarnay waxay tahay labadaas haday xaliso it's okay waa magaalo weyn xasimada laakiin labadaas intay taagan yihiin waxba kala dhiman taas mid ay ahayd midda labaadna waxay ahayd gabar aan dhalay halka lagu guursaday intaasna inaan arooskeeda ka qayb galo idin iska aragteen xukuumadda Soomaaliland iyo dawladda midka meesha u sarreeyay tagay madaxweynaha saragna way daraad baan u tagay hal ugu xidhi way ma aniga halkan fiire adinkan intii naanu jirin ayaan anigu reer Hargeysa ah waa la iga yaqaan inta kalena hada kulliba waa la ogyahay inaan haatan anigu marna ana meesha xumaanteeda ka shaqeyn iyo dagaalkeeda al contrario ma aragtay maxamed sayid waxyaalaha oo buulka ii galiyo waxa kamid ah dareenkii aan qabay oo halka ka qabay. General Maxamed Nuur Galaal taliyihii hore ciidamada militariga dalka Soomaaliya sidoo kale waxa uu si kulul cambaareeyay qaabkii madaxweynaha dalka Soomaaliya waa sida hadalka u dhigay uu buunbuuniyay taariikhda General Maxamed Ali Samatar. Generalka ka hadlaya waxa uu yiri nin la dhihi jiray Samatar ayaa dhintay xamar baa laga soo meeshii Washington baa laga soo qaaday xamar baa la keenay waxa la yiri waa geesigii qaranka hero national hero garanaysa way ka sheekeeyeen kuwa saraakiil meesha inta la soo fariisay waxa la wixii ogayaan la arag ay waxay ka sheekeeyeen aqoontiisi iyo geesinimadiisi xagee geesinimadii la ilaaha illa allah ma yaqaanin wax hero waa laga dhigay meesha xaruntii xoogga dalka lagu aas ninkan Xasan Sheekh la yiraahdo wata garanaysa non solo inuu ma aano kaliya inuu maaragtay been boonboonayay oo been boonboonay wuxuu ku tacadiyay oo meel uga dhacay dadkii oo ninkaas dhibaateeyay intuu habweynaatay ayuu meel uga dhacay waana ku sheegay ninka qaranka duubiyay wareysigan oo dheer waxa uu qayb ka yahay barnaamijka ka baxa telefishinka Hon Cable TV ee Xusureeb waxaana soo saaray wariye Maxamuud Cabdi Ducaale waxaana ku daawan doontaan maalmaha soo socda isagoo dhameystiran.